السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتنا داونيسay habeenimo wanaagsan meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka youtube-keenan badiyo bari channel ku soo dhawaada war waxaan caawidiin haynay mudaharaadyo ka jira gudaha Mareykanka xogayaha qaramada midoobay oo ka digay dhaqaale yarida iyo dhulgariir ka dhacay Congo DR iyo wararka Yurub Afrika dhawaan wararka diin hayno caaw waxa ugu dooron mudaharaadyo ka dhacay gudaha Mareykanka waxaa qorshaysan in ka badan 300 oo banaanbaxyo oo ka dhan ah hay'adda ICE lagu qaban doono dhammaan gobollada Mareykanka. Mudaharaadayaasha ayaa ka dalbanaya in la joojiyo xadgudubyada socdaalka, in la joojiyo maalgelinta hay'adaha xuduudaha sida Customs-ka and Border-ka. Sidoo kale, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in UN ay wajahayso dhaqaale xumo culus. Sababta Mareykanku xilligii Trump ayaa la joojiyay ama hoos loo dhigay qaadhaanadii uu siin jiray UN waxaana ka baxay hay'ado badan oo UN ah. Saamaynta dhaqaale xumida ayaa halis gelinaysa howlaha bani'aadanimo, saamayn toos ah ku yeelanaysa dalalka aan isku filayn iyo kuwa dhaqaaluhu ragaadiyeen. Guterres wuxuu ugu baaqay qaadhaan-bixiyayaasha kale inay kordhiyaan taageerada si loo daboolo baahiyaha jira. Wasiirka Difaaca Sacuudiga Khalid bin Salman ayaa ka digay in haddii Mareykanku uusan tallaabo ka qaadin Iran ay taasi xoojin doonto awoodda Tehran. Sacuudigu wuxuu doonayaa cadaadis muuqda oo ka dhan ah Iran iyadoo la iska ilaalinayo khatarta colaadeed ee ka dhalan karta tallaabo militari. Sidoo kale wararka ka imaanaya Midowga Yurub ayaa badbaadiyay markab la afduubay xeebaha Soomaaliya. Dhammaan 24 shaqaale ah markabka saarnaa ayaa badbaaday kadib markii burcadbadeed weerareen markabkaasi. Sidoo kale wararkan la soo gaaraya hadda dowladda Masar ayaa ku xidhay dadka sita baasaboorka Soomaaliya ee dalkeeda soo galaya in looga baahan yahay dalku gal Masar ah ama fiise hore. Dadka ku socdaalaya baasaboorka Soomaaliya waxaa kaliya looga baahnaa warqad oggolaansho oo si fudud looga heli jiray laanta socdaalka ee Masar. Arrintan ayaa loo sabaynayaa dad badan oo Soomaali ah oo ka tahriibay Masar in ay dadkaasi ku soo galeen baasaboorka Soomaaliya, taasaana keentay inay Masar bilowdo fiisaha ama arrimo kale oo badan oo siyaasadeed Xasan uu kaga baxay Masar. Sidoo kale wararka ka imaanaya Afrika, Congo DR, in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhintay dhulgariir ka dhacay oo burburiyay macdan weyn oo coltan ah oo ku taalla gobolka North Kivu. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa shaqaale macdanta ka ganacsada iyo haween suuqa joogay. Sidoo kale Itoobiya Digrayga weerar drone ah ayaa lagu dilay 1 qof, mid kalena lagu dhaawacay, taasoo sii xoojinaysa xaaladda amni ee gobolka Digrayga. Sidoo kale wararka ka imaanaya Jamhuuriyadda Somaliland, xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa qorsheynaysa in magaalada Boorama laga hirgeliyo garoon diyaaradeed oo casri ah, kaasoo noqon doona kii ugu horreeyay ee u horumarsan ee gudaha Somaliland. Ujeeddada mashruuca horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, shaqo abuur, isku xidhka gaadiidka hawada ee gobollada dalka. Faa'iidada istiraatiijiga ah, Somaliland waxay ku taallaa marin badeed muhiim u ah maraakiibta ganacsiga ee isku xidha Yurub iyo Aasiya iyo Bariga Dhexe ayaa halkaas mara. Dekedda Berbera waxay ku dhowdahay Baabalmabda, mid ka mid ah marinada ganacsiga ee ugu muhiimsan adduunka. Saamaynta Somaliland waa arrin ay quwadaha waaweyn indhaha ku hayaan, iyadoo muhiimaddu ku salaysan tahay juqraafi siyaasadeed iyo ganacsiga caalamiga ah ee Somaliland. Sidoo kale
wararka ka imaanaya dhulka Soomaalida Itoobiya taariikh ahaan qaybta dhulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa marar badan ahayd mid muran siyaasadeed leh tan iyo 1960kii wareejinta dhulkan markii hore Ingiriisku wuxuu gacanta ku hayay dhulka kadibna si rasmi ah ayuu ugu wareejiyay Itoobiya dadka ku nool qiyaastii 9 milyan oo Soomaali ah ayaa ku noolaa dhulkaasi qaarna weli way ka soo horjeedaan maamulka Itoobiya taariikh muhiim ah dagaalkii ogaadeen 1977 kadib dhulkaas si rasmi ah ayaa loogu wareejiyay Itoobiya inkastoo Soomaaliya iyo Djibouti markii hore aysan ogoleyn fariintan guud waxaa la doonayaa in mustaqbalka dhulkaasi aan mar kale lagu murmin iyadoo muranka hadda jira uu ka qayb yahay taariikh dheer oo ku saabsan madax bannaanida Soomaalida iyo dhulkooda sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo marar badan sheegay in Itoobiya dhul Soomaaliyeed haysato ayaa laba jeer tagay 2016 mar buu tagay 2026 mar buu tagay waa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee taga laba jeer waa nin wajiyo badan madaxweyne Xasan Sheekh waa ninkii markaas marna xaggaas aanu jeesanaya marna xagga sidoo kale wararka ay soo gaaraya hadda waxay sheegayaan wiil la yiraahdo Garyaqaan ayaa caawa lagu xidhay Muqdisho waxa uu ka mid yahay dadka baraha bulshada ka hadla dhawaan ayay xukuumadda Trump dalka Mareykanka ka soo mastaafurisay sidoo kale dhaliilo ayuu maalmo dhaweed u jeediyay kooxo dhinaca TikTok ka taageera xukuumadda waqtigeedii dhamaanaya ee Xasan Sheekh waxaana loo badinayaa in xaligiisu arrimahaasi la xidhiidho arrimo siyaasadeed dhalinyarada uu ka soo horjeestay sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya oo doonayay inay Muqdisho yimaadaan bay isku aamin waayeen Muqdisho waxaana iska soo horreysiyeen ciidamo fara badan baleer daawada Cabdisalaam baa inoo sharaxayay la'aanta siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku dambeyn doonto oo xarkaasi goosanaysa madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa maalinka bariya iyagu ku soo daabuli doona ciidan magaalada Muqdisho kuwaasi oo noqon doona ciidan iyaga ka sii horeyn doona waxaana ay sheegeen mid kamid ah iyaga hadii la hadlay inay dagaalami doonaan Soomaaliya ayaa sawir aad iyo aad u fool xun oo ka baxaya marka ay timaado arrimaha la xiriira in madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ay ka awood badan yihiin madaxweynihii haddaba si kastaba ha ahaatee dawladda Soomaaliya ayaa lugaha la sii galaysa maalinta ka dambaysa meel aad iyo aad u daran Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciid Deni waxa ay sheegeen in ciidamo ay geysan doonaan maadaama oo Xasan Sheekh Maxamuud uu isbedbedelo oo aanay ku kalsoonaan karin kalsooni daradan ayaa timid kadib markii Xasan Sheekh Maxamuud 4 sanadood uu isagu si doona u yeelay maantana la rabo in dawladda Soomaaliya ay doorasho u diyaargarowdo 4 bilood kadib Siciid Deni iyo sidoo kale Axmed Madoobe oo ahaa iyagu saaxiibo dhow markii hore Xasan Sheekh Maxamuud maanta waa cadow xarigoodu go'ay bal haddaba maalinka bariya weynu eegi doonaa waxa ka soo kordhay iyo sidoo kale ciidamada sida loogu soo dhaweeyo iyo xaalku sida uu noqdo sidoo kale arrimaha caawa ka hadlaya Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya waxa inoo falanqeynaya Cabdisamad Yare balsiida Cabdisamad la daawado wuxuu leeyahay horta hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taariikh oo dhigay madaxweynaha dastuurka u dhaartay ummadda Soomaaliyeed oo u dhaartay sidoo kale dhul inuu ka maqayahay maalin dhaweed wuu sheegay maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud jigjigo joogay ninkii Abiy Ahmed ahaay laba mashaariic oo furtay labada mashaariic oo furtayna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku casuumay mashaariicdii biyo xireenka iyo mashaariicdii hadda ugu dambeeyay dhul Soomaaliyeed laga furayo jigjiga madaxweynihii waa la keenay waliba oo ka qayb galay walow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waligiis hal mashaariic Soomaaliya oo ka furin ninkii Abiy haduu wacana wuxuu leeyahay dhulkaaga amni ma ahan ma imaan kari madaxweynaha dhulkii Soomaaliyeed lagu casuumay waana ka qayb galay marka dadkii u dhintay dagaalkii 77 qabuurtii lafihii maanta waa la soo faagay waxay ku hayaan hadaa la socon lahayn xilligan laakiin ma ogine ummadda Soomaaliyeed ummad loo dhinta ma ahan dadkii ku cuuriyay ilaa haddana way joogaan niyad jab ay ka qaadeen booqashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka soo gudub arrinkan meesha joogay mataqaana meesha waxa joogay sirdoona Israa'iila joogay qodbada madaxweynaha way dhageysanayeen laakiin kaamirada ma lagu heen sirdoona waa weyn joogay حتى مدحوينها أمنيجيس على كل حال أنا جوا عبصدي أوكي تاس هذا أجرته وحيابها هذاك اسمي دينا ينبضنا وحواي أرين كان سومال لأنه مدحوينها كو حمينا
somaliland muxuu ku xumeynaa ninkii abi axmed ahay ilaa hadda mowqifka somaliland ma cadeen somaliland inuu aqoonsan yahay in kale weli ma sheegin laakiin somaliland hoos ku aqoonsan yahay ma cadeen ninkii abi axmed ahay kasoo gudub haddana somaliland إسرائيل أقوسي كهشي ميل تاجن تهاي لكن دول حوق لجاجة هستو دستور كيس أو دارتي دت كيس أو دارتي حدنا إثيوبيا هوس جيزي تاسع بكسي حنبو دت كان وادت أيك ميل تاجن بو أقوسي ميل كلا كهلا الربار إلى الدولة جورية نقدام بو أو صومالي كلا هواي مركع على كل حال تاس وحدنا إيجرتو مدحوينها سردانو ووين إمارات كقيب أوكي هاي إسرائيل قيب أيكتها هاي أيا جيسيس بوحي مدحوين حسن شيخ محمود اوكي مدحوينها حتى انيغا امنيgiisa boqolkiiba boqol oo cabsaday masaxiibayal maanta tilaabada madaxweynuhu uu qaaday ala kulli xaal waxay ahayd tilaabo umada Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay ka soo horjeesatay waliba boqolkiiba boqol aad looga xumaaday marka madaxweynaha 3 bilood oo u haray mashaariic wadankii ma ka furtay abi axmed Soomaaliya ma keeni kara daawadayaa war waxaan caawidin hayna waa dhageynta tan iyo intan dib u kulmayna habeenimo wanaagsan subscribe share, like, comment, please. Bye.